waxaan maanta hadii ilaahay ka dhigo aan ku qaadan doonaa casharkeena labadan sawir qaabka loo sameynayo sida sawirka looga dhigayo laser camal marka insha Allah hadal ku badan casharka hore oo si bilaabano insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadasha qiimaha badan ku soo dhawaada channelkeena Uncode Books Art Somali. Waxaan maanta cashar cusub aan ku qaadan doonaa qaabka mikrofoonka ku tusay sawirka. Horta intaan muuqaalka u gudbin waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaad ka mahadnaqo commentiyaashiina malabka ah aad soo dirteen. Marka adiguna haddaad ku cusub tahay muuqaalka fadlan subscribe saar. doonaysa inaad saas oo kale aad ku soo bixid muuqaalka xiga commentigaaga uu ku soo dhaxbaxo fiidiyoga casharka ku xiga insha Allah tacaala comment noqo kuwa ugu horeeya ee soo qora commentiga. marka insha Allah tacaala waxaan galeynaa barnaamijkan Books Art ayaan galeynaa soo furana soo jeedna barnaamijkan ku soo soo kacay saas weeyaan. saamku nagu soo baxo ayaa markasta oo taqaan meeshan taabanayno calaamadeena san taabanayna marka soo taabano ayaa waxaan ka xulanaynaa sawirkaas aan xulanaynaa aan ku sameeyno marka sawirku nagu soo baxo ayaa waxaan tageynaa qaybta art photo ayaan tageynaa art photo ma ku dhufano waxaan soo qaadanaa sawirka art baan leenahay kadib markuu sawirku nagu soo baxo ay waxaan raadinaa meesha ku sawran tahay maqasku ku sawran raadinayna soo jeedaan markuu nagu soo baxo ay waxaan leenahay outline dadana waxaan bilaabaynaa inaan xariiqno si caadi ah ahayd soo jeedaan kadib marka saagu xariiqno saagu soo waabnaa calaamada flash siinayna soo jeedaan ishan taabanayna intuu ku daray iyo intaanu marinba soo jeedaan marka waxaan bilaabaynaa inaan marino meel uu ka tagay marka soo dhameeyno sawirka ayaan waxa leenahay save soo jeedaan save markaan raano aan xogaan yara balaarinaa soo jeedaan saan u soo baxo ayaa waxaan xulanaynaa qaybta effectska oo tan ah ayaan xulanaynaa kadib waxaan xagga hoose ka dooranaa qaybta artics soo jeedaan xagga midig baan soconaynaa waxaan raadinaynaa meesha ku qoran tahay neon oo tan ah aan ku dhufanaynaa mar labaad baan taabanaynaa tan koobaad ayaa waxaan ka dhigaynaa 100 ta labaad 100 ta saddexaad 0 ta kalena 0 sax baan oranaynaa kadib markuu soo nagu soo baxo sawirka ayaa waxaan tagaynaa qaybta midig waan kacaynaa meeshan bling ay ku qoran tahay tan ah aan taabanaynaa kadib waxaan ka dhiganaa screen soo jeedaan sawirku saas nagu soo muuqday waxaan taabanaynaa kadib calaamadaas kiisada xagga sare ku taalan taabanaynaa kadib waxaan bilaabaynaa inaan jarno ama masaxno intaan masiixan taabanaa baabiisana taabanayna kadib waxaan bilaabaynaa inaan jarno inta dheeraadka ku ah sawirka ayaan jaraynaa
dhirta ku beegan ayaan masaxaynaa soo jeedaan taana loo raacanaa inta dhirta ku beegan waayo kaliya saa markaan uga jarno inta dhirta ku beegan tabaa ku hadhan ilaaway saa markaan u jarno ay waxaan leenahay sax mar labaad siinaynaa kadib haddana waxaan xulanaynaa qaybta effectiska mar labaad hoose waxaan ka xulanaynaa meesha ku qorantay effectiska oo kan ah markaan ku dhufano ayaa xagga midig anagoo kacayna ay waxaan ka baaraynaa meesha ku qorantay crips marka saa helno waan ku dhufanaynaa kadib calaamadaas waxaan taabanaa maajiga ah kadib xagga hoose waxaan kasii xulanaynaa meeshii ku taalo ama ku qorantay color xagga midig baan u kacaynaa waxaan ka xulanaynaa meeshay ku qorantay saturation baan ka dooranaynaa waan ku dhufanaynaa kadib waxaan leenahay sax kalaan sii oranaynaa gallery doon baan leenahay sidaasaan ugu dhan yahay casharkeenu adiguna haddaan ku cusbeen channelka fadlan subscribe dheh kambalada taabo si cashar kasta aan soo dhigno oo kuu soo gaaro oo weysiiskiisu saa ugu noqotid kuwa ugu horeeya ee iska soo bixiya commenti si uu kugu soo baxo casharka ku xiga qoraalku aad soo qortay commentiga markaa saas kaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.